Ma isweydiisay sababta dad badan ay u jecel yihiin wax akhriska adigana aad u dareemayso inuu kugu culus yahay? Ma tiri marar badan waan bilaabayaa akhriska, balse dhowr maalmood kadib aad joojisay? Haddii aad rabto in akhrisku kuu noqdo caado fudud, macaan oo noloshaada wax ka beddesha, muuqaalkan ha ka boodin saaxiib. Mid ka mid ah caadooyinka ugu quruxda badan, uguna waxtarka badan, uguna muhiimsan nolosha uu qofku yeelan karo inta uu nool yahay waa caadada wax akhriska. Wax akhrisku waa awood ka mid ah caadooyinka dhifta ah ee qofka garaadkiisa u sameeya istaraagjar, hab fikirkiisa negatifka u beddela positive, maskaxdiisa u tababara fikir qoto dheer. Wax akhrisku waa awood ku siinaya keed aqooneed, dhisaya kalsoonidaada, qurxinaya hadalkaaga iyo sidaad wax u sheegayso, ku abuuraya wacyi iyo ogaal ka dhex muuqda meel kastoo aad fadhido. Laakiin inkastoo faa'iidooyinkaasi oo dhan ay jiraan, wax akhrisku ma aha caado si fudud u samaysanta. Waa caado u baahan caadooyin yaryar oo kuu fududaynaya in caadadan weyn ay noloshaada gasho. Saaxiibayaal, muuqaalkan maanta waxaan idinkula wadaagayaa 7 caado oo kuu fududaynaya inaad noqoto qof wax akhriska jecel. Haddaba soo qaado buugnoodkaaga iyo qalinkaaga, ha soo ilaawin koob shaah ah, kuna soo dhowow muuqaalkeena maanta. Caadada koowaad: yeelo yoolal wax akhris. Qof aan lahayn yool, akhriskiisu ma sii jiri doono. Ha odhan waxaan rabaa inaan buug akhriyo, oo dheh maalin walba waxaan akhrinayaa 10 bog, ama bishaan 1 buug ayaan dhammaynayaa. Yool yar balas joogtayn, natiijo weyn. Akhrisku tartan ma aha ee waa safar. Caadada labaad: had iyo jeer buuggaaga wado. Buug aan kuu dhoweyn lama akhriyo. Ku kaydi boorsadaada, ku hay taleefankaaga, PDF ama app ahaan. Ku hay meel aad mar walba aragto. Marka aad sugayso, safar ku jirto, ama waqti yar haysato, buuggu ha ku horyaalo. Caadada saddexaad: dhegayso buugaag maqal ah. Haddii aadan jeclayn akhrinta qoraalka, dhegayso buugaag maqal ah. Marka aad socoto, marka aad jimicsi samaynayso, ama shaqo fudud hayso, xitaa buugaag la soo koobay waa bilow fiican. Muhiimaddu waa maskaxdaada wax geli. Caadada afaraad: yeelo saaxiibo wax akhriya. Qofka aad la joogto ayaad u ekaanaysaa. Haddii saaxiibadaha wax akhriyaan, buugaag ka hadlaan, aqoonta wadaagaan, adiguna si dabiici ah ayaad ula qabsanaysaa. Ku biirnaadiyo wax akhris, ama samee koox yar oo aad buugaag ka wada hadashaan. Caadada shanaad: nowd ka qaado waxa aad akhrinayso. Akhris aan la qorin si fudud ayuu u lumayaa saaxiib. Qor fikradaha muhiimka ah, qor waxa ku taabtay, qor casharo aad baratay. Tani waxay hoojisaa fahamkaaga, waxayna kaa dhigtaa qof si qoto dheer wax u akhriya. Caadada lixaad: sheergaree waxa aad akhrinayso. Marka aad wax wadaagto, aqoon baa sii hoogaysata, adiguna waad sii fahmaysaa. Ku wadaag saaxiibo, Facebook, WhatsApp, ama xitaa video gaaban. Qof wax wadaaga wuu sii akhriyaa. Yeelo keyd buugaag. Buug la arko waa buug la akhriyo. Ku samee shelf, ku samee folder digital ah. Ku kaydi buugaag kuu muuqda. Markaad aragto buugaag badan, maskaxdaadu si toos ah ayay u jeclaanaysaa akhriska. Ugu dambayntii saaxiibayaal, wax akhrisku ma aha wax kaliya hal buug la furo ama la akhriyo. Waa hab nololeed qofka si tartiib tartiib ah u beddela. Ma aha inaad hal mar noqoto qof buugaag badan akhriya, mana aha inaad maanta akhrido 100 bog. Waxa kaliya ee muhiimka ah waa inaad bilowdo, xitaa haddii uu bilowgaas yar yahay. Haddii aad maanta akhrido 1 bog, berri 2 bog, toddobaadka dambe 5 bog, taasi waa horumar. Maskaxdaadu waxay la qabsanaysaa akhriska sida murqaha oo kale. Markastoo aad isticmaasho way sii xoogaysataa. Xasuuso dadka maanta fikirka fog leh, hadalka miisaaman iyo go'aamada degan qaata, badankoodu wax akhris ayay ku dhiseen. Buug walba oo aad akhrido waa saaxiib cusub, waa waayo aragnimo cusub, waana furaha albaabka kaa xiran. Haddii aad rabto in kalsoonidaada korto, fikirkaagu nadiif noqdo, oo aad hadal qurux badan yeelato, oo aad rabto inaad ogaato waxyaabo aanad horay u ogeyn, hal dariiqo oo kaliya ayaa jirta, waana akhriska joogtada ah. Ha sugin waqti ku habboon. Bilow maanta, bilow hadda, bilow adigoo isticmaalaya hal caado oo ka mid ah 7 aan wadaagnay. Mustaqbalkaaga adiga ayaa dhisaya. Buugguna waa qalabka aad ku dhisi karto. Waayahay saaxiibayaal, muuqaalkaas kooban ayaan jeclaystay inaan idinla wadaago. Waxaan rajeynayaa inaad wax uun ka faa'iiday. haddii aad ka heshay muuqaalka like saar, sidoo kale nagu soo bir. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.